عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجيني مهم كأها سنهر وشيء يعني مرتين خير كم ده نص هذا مركمان توحربها إن برنامجيني أنا كسوقاته وحيابه مهم كم إن يا قانتا يهرمركا ومت الصومالي ملبا يجوان gaar ahaan maaragtay dhalinyarada caruurta iyo waalidiinta ku nool qurbaha maxaa yeelay wadankii aan ka nimid hore u sheegay iyo wadamada Yurub waxyaabo badan ay kula duwan yihiin marka dhibaatooyin fara badan oo dhinaca arrimaha bulshada diinta iyo arrimaha siyaasadda ayaa soo baxay marka waxyaabahana waxa loo hortagi karaa marka hore inaan istusino aan fahamno sidee wax u dhaceen iyo asaaska ay leeyihiin waxyaabo walba meesha ay ku abtirsadaan iyo sida loo hortagi karo dhaqaatiirtu waxay sheegaan markii la rabo cudur in la daaweeyo in daawo loo helo oo isla maalintaas la daaweeyo waxa ka fiican in waxyaabaha cudurka keenay la baaro kadibna la ciribtiro sidii loo ciribtiri lahaa marka dhibaatooyinka jirana maadaama ay ku lug leeyihiin waxyaabo aan loo jeedin waxaan rabaa inaan xoogaa aan isla fiirino kadibna wixii maaragtay way la socdo dhibaatada ugu weyn maanta hadda aan rabo focus-ka aan saaro waxa waaye dhalinyaro badan waxay ku dhimatay dalka Canada dalka Australia Ingiriiska Yurub meel walba dhalinyaro badan ayaa waxay ka mid noqotay mafia ama gangs waxyaabaha ugu badnaan kara marka hore waa inaan ogaanaa ma jiro wiil markuu dhasho asagoo yar ku fikira amar leh riyo inuu gangs noqdo ama tuug noqdo ama dilaan noqdo ma jiro hooyo ama aabe waalid jecel caruurtu inay noqdaan hase yeeshee caruurtii ayadoo la raba ayagana ay jecel inay fiicnaadaan mustaqbal fiican yeeshaan waalidkiina uu raba inay caruurtu ay noqdaan wax fiican haddana jidkii laga leexdaa waxyaabo badan oo muhiim ah ayaa keeni kara waxaa ka mid ah waxa waaye in qof walbo adalta weyn haddaan tusaale usoo qaadano wuxuu jecel yahay in waxyaabaha uu riyadiisa ay tahay oo wanaagsan oo uu asagu arko waxyaabaha himilooyinkiisa uu ku fikirayo mar walba inuu gaaro haddii uu gaari waayo waxaa dhacaysa inuu niyad jabo tusaale ahaan waxa waaye adiga haddii maanta waxa jira waxyaabo aad ku fikirayso maalin walba markaad subaxdii soo toosto inaad waxyaabaha aan sameeyo haddii maalintaa lacag hadda aad rabtay inaad hesho daaweydo haddii ay sidii wax rabtay ay u noqon waayeen waa niyad jabaysaa maalintii ay wax walba okay ku noqotana waa farxsantahay marka caruurtana ayagana caalamkooda gaarkay ku jiraan waxay leeyihiin expectation oo waxyaabo ay filanayaan oo ay rabaan haddii xadka waxyaabaha ay rabaan oo ay dunida ay ka filanayaan haddii waxyaabaha marka inta ay ka gaareen hadduu yar yahay ama aysan gaarinba waxaa dhacaysa in niyadjab uu kasoo baxo niyadjabkaana uu qayb ka noqdo inay waxyaabo akhlaaq xun inay ku dhaqaaqaan taas mid talabaad waxa kale oo muhiim ah waalidka sida uu la dhaqmo caruurta markay yar yihiin ilaa ay dhalinyaro ay ka noqdaan waa wax muhiim u ah inay caruurtaas noqdaan kuwa leh maskax nadiif ah oo wanaagsan oo gulsooyin kara iyo qaar mari habaabi kara waalidka marka waxay u kala baxaan waalid markii hore hooyo aabe isqaba isu faraxsan oo ayaga u dhashay leh inay yaraantoodii ama wax bartay ama aan wax baranin laakiin nolosha wax ka bartay oo diintina si fiican u yaqaana oo raba caruurtii inay si fiican ku maamulaan taas mid iyo waalid aan wax fahamsaneen oo raba inay wax toosiyaan laakiin habkii ay wax ku toosaneen inay wax ka qaldaan marka qaladkaas uu dhacana oo guriga uu ka dhaco waxaa dhacaysa in caruurtii ay niyad jabaan oo marka ay tagaan waxa kaloo muhiim ah haddii waalidka hooyo iyo aabbo dhexdooda uu ka dhaxeeyo conflict ama iska hor imaad joogta ah naceeb joogta ah waa meesha aan jirin jacayl aan jirin nabad oo waxyaabaha labadooda ay markasta aflagaado iyo waxyaabo xun lagu dhaqmo caruurtii maskaxdoodii qayb ka mid ah waxaa buuxsantay conflict ama naceeb marka waxyaabihii markay aruuraan caruurtii waxay la tegayaan ama dugsigii wadamada Yurubta iyo Mareykan iyo ama meelaha kale marka dugsigii markuu tago arday maskaxdiisa waxyaabo problem uu ku furan yahay waxaa laga yaabaa inay saameyn ku yeelato dhinaca waxbarashadii uu ka gaabiyo waxbarashada oo caruurta ay ka gaabiyaanna markay galaaska fadhiyaan waa niyad jab kale maxaa yeelay arday walba cunug walba wuxuu jecel yahay sida ilmaha kale ay wise u yihiin
inay wax maaragtay ay casharada ay u fahmaan ay u sameeyaan haddii cunugan uu arko inuu ka gaabiyo uusan maskaxdiisa su-aalaha ka jawaabi karin oo active uusan ahayn uu ku dhex jiro caruur kaloo faraxsan oo maaragtay oo ay dhaleen waalidiin horumarsan ama waalidiin farxad leh marka waxaa dhacaysaa in markuu isku cabiro asaga xaaladda uu ku jiray xaaladda dadkii asaagiisa ahaa ficiisa ahaa markii uu isku fiiriyo wuxuu arkaa inuu ka hooseeyo taana niyadjabkii ayaa ay sii bantay marka cunugii haddii intaas ayadoo ay jirto waxaa kaloo faktorka kale oo haddana muhiimka waxaa waaye dhaqaalahana uu ka cayaaraa door in caruurtu ama ay farxaan ama ay sameeyaan dhaqaalahaas oo ah kan uu gacanta ku hayo waalidka oo loo baahan yahay inuu mar walba ula garab joonaado dhaqaalaha maaha in dhaqaalo aad u badan oo sameeyo laakiin dhaqaalo loogu talagalay cunug walba ama wiil walba oo dhalinyar ah ama gabar walba oo dhalinyar ah in ay iskuulka markay aadayso markii dadka asxaabteeda waxyaabaha ay sameynayaan markii ay rabto inay la bisato ama asaga inuu rabo inuu waxyaabo gato mobile uu gato waxyaabahaas oo dhan haddii dhaqaale ahaan waalidka ama ay dhaqaalahooda wuxuu yahay hooyo aaba ay shaqaynin ama hooyo kaligeeda ay tahay caruurta ay badan yihiin marka wiilkii waxaa laga yaabaa niyadjab dhinaca dhaqaalaha uu ka yimaado iskuulkii marka inuusan samayn karin waxyaabihii loo baahnaa taana waxay keenaysaa inuu niyadjabkii inuu sii weynaado marka ilmihii oo waxyaabo badan ku furan oo iskuulkii yimid iskuulkiina wax ka keeni waaye oo da'diina sii socoto ayaa wuxuu isku arkayaa inuu niyadjabkii inuu ku weynaaday inuu noqday qof nolosha aan guul ka soo hoyanin waxyaabuhu rabayna uusan keenin maaragtay waalidkiisna aan u riyaaqin waxa la yidhahda appreciation uusan ka helin macallimiintiina aanay u riyaaqin marka inuu nin aad u xun marka psychologically waxaa dhacaysa qofka haddii uu isku haysto inuu nolosha uu ku guul dareystay ama inuu waxyaabo raba gaaribayo marka asagoon ogeyn wuxuu arkayaa inuu nacaab buuxsamay qalbigiisa in uu jecel yahay dadka kale xataa inuu arko in ay khasaaraan ama in uu waxyaabaha nabadda iyo farxadda oo dhan inay ka maqan tahay qalbigiisa taa asagoo haddii uu yahay ayaa waxaa jiri kara qof weyn oo wadamada Yurub drug dealers oo ah dadka drug maratay ama daroogada gada mukhaadaraadka meesha siiya oo raadinaya kaliya wiil dhalinyar ah oo lacag u baahan wiil dhalinyar ah oo xanaaqsan markii ay soo approach gareeyaan ay u yimaadaan cunugaas oo kale waxaa laga yaabaa isla markiiba inuu arko fursad uu kaga aargudan karo nolosha oo dhan ma aha hal qof kaliya dadka kale oo dhan wuxuu u arki karaa habka kaliya uu ku heli karo dhaqaaluhu u baahnaa inuu xor ku noqdo waxaa kaloo meesha imaan kara dad kale oo raadinaya waxyaabo sida maalan inay ku biiraan argagixisada ISIS-ka Syria iyo meelaha ka dagaalama oo raadinaya dad dhalinyaro ay been u sheegaan oo maskaxdooda qabsan karaan markii dhalinyaradan oo kale oo niyadood jabsan markay ku soo aado markay la hadlaan waxay u tusayaan inay wax hab nolosha dhan ay tahay dadkan maalqabeenka dadka horumaray iyo dadkan dhalaalaya oo dhan in looga aargudan karo ama wax loogu sameyn karo markii taa ay dhacdana waxa waaye isla markii cunugaas kale ku soo aado inuu raaco marka waxyaabihii xumaa oo ku heerarsanaa ilmaha ayaa u sababay inay jidka ka leexdaan ama waxyaabo negative ah ay sameeyaan marka fariinteyda waxaan ku soo koobayaa caruurta wax walbo ay noqdaan ma aha wax ay ayaga doorteen ama waalidku u dooray waa wax circumstances-ga ama xaaladaha lagu abuuray ama lagu hayo xaaladaha haddii laga shaqeeyo laga baaraan dego oo hooyo aabe ama hooyo kaligeeda ama aabe kaligii uu isku dayo inuu jid fiican uu sameeyo marka waxaa dhici karta inay badbaadaan laakiin haddii la iska indha tiro ama la ilaabo waxyaaba kale la dhaho waa laga doorbido waxaa dhici karta inay ay maaragtay ku dhacaan waxyaabaha hadda maanta aan ognahay kadibna inay dhexdooda isdilaan ama maafiya ay noqdaan waxyaabahaasoo dhan marka waxaa muhiim ah in caruurta markay yar yihiin processka lagu bilaabo markay dhalinyar ay gaaraanna waa shaqo joogta ah marka in la siiyo waqti in la siiyo maaragtay qarash loo qoondeeyo in barnaamij loogu talagalo waxyaabo badan loo sameeyo marka intaasaan kusoo koobayaa insha allah cajaladihii kale ayaan waxyaabo horumarka qayb ka ciyaaraya ayaan isku ognahay insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu